سبنا بدنا قام مغني تذكي سوح الشذي حتى وادر تنسركاني حرني مسؤول لا قالوا انتيو سبنا بدنا قام مغني تذكي سوح الشذي أنا سند كورديو سيرادكي دولة نيمو سكبه دبال دقني ورشي سحب ذاوتما ما انت أنا سند كورديو سيرادكي دولة نيمو سكبه دبال دقني ورشي سحب ذاوتما دمعي الدبان كل قاضيو وجيغا وديغي عليو ولي قاعدين magaalada aan joogno ee dalka Holland dalladda Somaliland Society Europe waa dallad xiriirisa jaalidaha Somaliland ee qaaradda Yurub waxaana lagu hogaaminayay gudoomiyaha waqtigan dalladda Marwa Nuura Cali Xafan iyo tacab badan iyo waqti badan soo gelisay sidii ay isugu iman lahaayeen jaalidaha Somaliland ee qaaradda Yurub ee dalladda ku midaysan maanta waxaa martuu tihiin barnaamijka qaybta koowaad dalladda Somaliland Society in Europe oo si nugle iyo miisaan leh u soo qaban qabsay munaasabaddan joogno waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa jaaliyadda Somaliland ee dalka Holland oo hogaaminayo mudane محمود عبد الله دجالة وهذليا مقعي مقعد جالية الصوماليين إيه هولن وعن شرف نوع هذا أنا هيك جالية الصوماليين يوم بسدر الصوماليين إيه هولن إن ما أنت نلج هوجان وفد ميسان ونص أي كصعدة جمهورية الصوماليين إيه هو منيو مدن مدحوين كحجين جمهورية الصوماليلاند عبد الرحمن إسماعيل سيلعي دكتور عيسى كيد قيبت أقول رئيس برنامج وحويان الصوماليين سوسايتي إن يوروب قيبت طلباتنا وحويان الجالية ديو حسكي اجتماعي هي ساي كلمة لو تجارو gudoomiyaha dalladda jaalidaha Somaliland ee qaaradda Yurub Somaliland Society in Europe Marwa Nuura Cali Dhuxul la soo dhaweeyay saxabkii hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore happy 18 May
Holland. Thank you inaad soo casuunteen, nala shaqayseen, na sharafteen. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha Somaliland Society in Europe before COVID. Marka waxaan ka shaqaynaa Somaliland Society in Europe uma gelaya speed waa kii tasbiilay halkan. Laakiin waxaan jecelahay in aan anigu mar walba ka shaqeeyo development. Somaliland waa tahay laakiin in badan dad badan baa ka qashaafa inay sheegtaan oo asxaabtood markay la joogaan ay yiraahdaan Somaliland baan dad fara badan baa jira oo Yurub ku nool oo aan sheegin oo carruurtooda iskuulka aan u sheegin wax meesha ka yimaadeen Somaliland iskama gooy kartid Soomaaliya ma tihid Soomaaliya ma tihid marka ay isku dajin waa laga tagay Soomaaliya laguma noqonayo إلا آخر إن أدي كلسوني سويشي أو عروت أدي كلسوني سويشي أو أد قوان يلتت قوان كأي دولة دينو هايسو وإن أنكو سبورت كرينا وإن أنشوشنا هذا الله يحن وإن أنشوشنا قبيل وحن وإن أنشوشنا عروتين إن وحن ونكتي خبرنا وأنتن عم قدام معركة السعودية عن هلين وريهول الهلاك هنا ما تجهز هو هلاك دينا هايستان بلعون كريجي كي قرن كجبريت الصومال عطوا وراي كان هذا أبو أحسن هاي منستر لاين كوي قال دكتور عيسى كي ورد لي إلا يقول يتوقع شيء وجد بيه يوروب وقدر كل بدر تجاهي العناية كغير جلاهي ما أنت استير توقع مين مركا تاكلين كرا وإحنا تري كرا طلعنا سين كرا مركا وحن كفر أحسن هاي عاو هالك كان يدا لفت جيدا عن نورا عن ما هذا نقو شقدا وين هايو هايسو سكوحركا دلالها يورو بوردر دلالها اسمه هاي تريان هوري سفير كلو يجوه الرجيب عشيري وحوي بهالكن أنه هالكن إنك جوده كذا القبيل كلا يراهو ده يدور اسمه كليسة يجو مكة طبعا waxay ka shaqeynaysaa oo aan iyadana ku sii bogaadinaya inay shaqada ay wado ay sii laban laabto oo ay isku xidho oo horumarkeeda siday daladuhu isugu wada xirmayaan Yurub oo dhan ay ka shaqeyso waxaasoo kaliya ma qabanto daladuhu macaawinooyin fara badan oo wadanka waxtar u leh oo fara badan bay qabtaan bay qabataa hadda nuura marka waxaan rabaa iyada laftigeeda inay u mahad naqdaan oo halka kan aan anagu talyaaniga dee waxaan leeyahay grazie kelmadeydii baan kugu oranaya waad mahadsantahay nuura talabaad shacabkeena reer Somaliland ee qurba joogta waxaan rabaa inaan hal mid oo waana aan idin sheego أنا Somaliland kuma dhalanin hooyaday kuma dhalanin awowgay kuma dhalanin awowgaydii shanaad ba ka yimid Somaliland waana ku dhaartaa bahasha qabyaalada la yiraahdo iska daaya qurba joogo dhammaanteen haddaan raano siyaasiyiin baan noqonaynaa xagga kama timaado xaggan baa laga shidaa bahasha dadka reer Somaliland waxaan leeyahay qurbaha jooga dhamaantayo siyaasiyiin ma noqon karno dhamaantayo ma noqon karno jagooyin ma raadsan karno qayb kamid ah anaga soo gaarsiiyay si xafladayna laga qayb galaan magaalada Holan sidii ambassadorkii ugu horeeyay sheegay aad baad u sii barintiin waxaan idin codsanayaa mar labaad inaad saacad qiimo ku soo dhaweysaan waqtigeena qiimaha leh ayna la jooga jaaliyadda iyo gudoomiyaha jaaliyadda iyo wakiilka Holan محمود دجالة يردمان جاليدها كلا دوانة مشان جوجا يوجو هرسو قدوميها SSE نورا يردمان وكيلة دي سوماليلاند كسوق قبلي مناسبة دن رنتي وحويان
sharaf weyn bay tahay maanta in markii ugu horeyso aan u soo baxo 18 May Europe annaga oo taayadii ku qabsanay 18 May ambaasadorada Europe oo dhan yaduna ama ururka ambaasadorada Europe Noura runtii iyo ambaasadorada afqaraf ambaasadorka Denmark dhammaan ambaasadorada Switzerland iyo ururka SSE dhammaan ay ku midoobeen dalada ambaasadorada Somaliland jahliyadaha sharafta leh ee ka kala yimi Europe oo dhan ee ay kow ka yihiin jahliyada Holland ee aan maanta martida u nahay wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici Somaliland meel magtii lagu siiyay dadkii laga laayay ma jirto Somaliland waxay doonaysaa inay kula noolaato geeska Afrika nabad Somaliland in qof kasta oo ku yiraahdo maxaa Somaliland adu haysaa waxaan doonaynaa inaan dhisno saaxiibtinimada baarlamaanka Yurub iyo Jamhuuriyadda Somaliland kolay dadaal badan baa soo gashay oo qaranka soo geliseen mid hore oo dalka lagu xoreeyay iyo mid dambe oo dalka lagu yeedmeelayay oo dadka aan shaqaynayn oo camal badan haynin ay ku biirin jirteen iyo mid dalka imika lagu horumarinayo aan ku marayo laga sii baqaadayo laga dhisay dhammaan jidaale oo wakiilka horan oo maanta aan ugu mahadnaqayno inuu qabanqaabiyo shirkan binacsan Noura oo gudoomiyaha ururka SSE dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan idin xusuusiyo halkudhiga sanadkan waxaa la yidhahdaa af ingiriis waxaa lagu leeyahay unity peace iyo progress waxa weeyaan midnimo nabadgelyo iyo horumar mudanayaal iyo marweyn dhammaan madaxda iyo marsharafta ka joogta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام سلام كدب الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمعنا حنوات سمعنا حنوات سمعنا حنوات انت كدب ما حد إله كسكو وأن آدي آدم بعض قيا جاليد الرئيس مالان اسكت دوبا سيد شرفت iyo karaamada leh iyo wadanada ku dheehan tahay halkan nagu soo dhaweeyay dalka Holland iyo ka xiriir intii Holland hayd iyo intii kale ku dhaweeyay maarta tala kale Yurub ka tirsanaa ee ka soo gaari kariyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aniga waftigeyga oo horeeyo wasiirka arrimaha dibadda aniga waftigeyga wasiirka ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xubnaha kale firfircoon halkan idinkala hadlay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa runtii hadduu yidhi maartay wasiirka arrimaha dibaddu waa lanoo dambaysiiyayoo hadal dabayaaqadii baan ku haynaa hadalka intii badnayd rag naga aftahsan baa hadduu yidhi isagu hadha waxaan leehay way iga baahsantahay farxadda iga fara badanoo way iga baahsantahay waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dalada Somaliland Society in Europe ama Soomaali ahaan la odhanayo jaalidaha Somaliland ee Europe sida karaamada iyo sharafta leh halka lagu soo dhaweeyay iyo sida isku duuban yihiin ee halkan ka dareemay hadalkoodii iyo ficilkoodiiba aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa guuleysta baan leeyahay waxaan si gaara u hambaleynayaa gabadha gudoomiyaha u ah Mrs. Noura ama Madam Noura aad iyo aad baan u mahadcelinayaa runtii halkan hadal qiimo aad u badan leh hadal qiimo weyn leh ka jeedisay iyadoo gabadha ka socotay Switzerland runtii waxay muuqatay inay hablihii ka badiyeen raggii bacbaad ka badiyay caawa
laamiyana qof saddexaad noqonaysa oo iyada nooga soo boqoshay halkaa iyo Finland oo taay u soo lahayd sababtoo ahay sababta ilaahay ka soko inaan ka nimaado maartay fiisa noo xareysay iyadoo qof saddexaad u baahantahayo waxaad moodaa warkii dibadda nooga jiray halkani maartay qola cadaan ku idhahdaan leys feras la idhahdo feraskii u ka muuqdaade in haweenkii ay mudnaanta leeyahay ay hogaaminayaan way ka muuqataa waan ku faraxsannahay haweenku waa hooyo waa walaal waxaa hooyga lagu hoydee qoyska aad iyo aad baan u faraxsannahay intaa kadib anagu waxaan u soconaa waanu dhimiday waan uga dhimiday si aad la socotiin saakaan dhimiday halka waxaan soo caga dhiganay saaka sagaalkii oo la socon biiraa soo caga dhiganay annagoo kasoo socdaalkii soo bilaabay 5tii galabnimo shalay yani waxaan muddo 16 saacadood socod kusoo jirnay Hargeysa Addis Ababa Vienna oo tres ku ahayn آخر سوق قاعدين أمستردام runtii khayr la siiyay safiirka ama wakiilka Soomaaliya halka jooga Mastan Dagaale isagoo laga soo qaaday baabuur raaxo laga soo qaaday Amsterdam Denhaag caasimada siyaasadda ee hore inaan wada noqono Somaliland mida oo dhan waa socota oo maartay cadawga wada daafacaysa horumarka kala shaqeynaysa waxay la dhimaysaa odayaasheenii hore oday annaga reerka ka soo jeeda ka mid ahaa ayaa waxaa la yidhi adu jirkaa ka soo jeedo waxaa la dhaha afarteen micini baa afar waa afar jir macnihi dhaqanka reer abtirsiinteeda waa taqaana reer walba waa afar oday waa 5 oday waa 2 oday وعقل بطايو ملا وقت قاعد كل الدنيا نوشة إلى وحشة إلى أنت نوشة إلى حوي هذا ولا ماتا لما وايو قرطوف يا خلاف لما وايو ومركز قرطوف يا خلاف وجرا ملا وقت قاعد غير غير سير خمسة وحوي هاي حوكي غيرك خلا أول من حوكي سو ودليرت ودليرت حوكي غيركو يروحوني وحشوكو أفر ولو بسوقي إنما ذاك الجو حكوري وهذا وشاقبت بوري من يقول بودي أفرتي جبيه بوري سلاس يقبت يا دعم كسيا يقول أنت هذا بودي أفرتي نمط يقول من لباب ودودي من لباب هذا بودي جبيه هذا لو يجبت هذا بودي بيوم مسطح ولا ويدقق وقعد مشترك جوا هذا بودي بيوم رافع اللي عوايبه وحوري وحال ذكرها بأموري إن البيودان سنة وشاسي ولمكا حتى قيقيب ستين سنة ما نوع من لهم جبني ودع وصي حتى ستين سنة أفرطاء والله سنة سوق خطي أيلو جبيني يلو جبيني مرتدى واحد وقصة إن مدى رئيس المالا وأفرطاء أما أفرطاء بيرود أما شب بيرود ووين وإلهي مالا ودقي وحدود السومالان أي مدرسة أنت هسيتين بدودو إذا اللي جبي كرسا أما اللي كرسا بجرتو إذا أنا وكاشرنا على كان قيمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله قوتنا وإنه هرسلنا ورسجونا إذا كرسا إذا جبي كرسا بجرتو إذا كستوي نقول دواء ما نقصد شيء ونقول دواء داري وحنا آخر كام وحنا اسكوينا إن شاء الله Somaliland oo nabada oo barwaaqo oo qurux badan.